Saxaafadda Al-Carabiya ayaa xilli hore oo aroortii ahayd waxa ay sheegtay in uu geeriyooday Rayaan oo ahaa wiil ku dhibaataysnaa god ku yaala magaalo ku taala dalka Morocco. Geerida wiilkan ayaa waxa ay ruxday qulubta guud ahaanba dalalka Muslimka ah iyo weliba guud ahaanba caalamka. Haddaba geerida wiilkani sidee u dhacday? Sidii aad la socoteenba waxaa in dhowaalay toba socday howlgal ballaaran oo lagu badbaadinayo wiilkan. Wiilkan ayaa waxa uu halkaas ku jiray muddo 5 maalmood. Ugu dambeyntiina dadaal fara badan kadib markii dhuumo waaweyn hoos laga geliyay lana qoday, waxaa lagu guuleystay in xalay xilli ay saqdhexe tahay laga soo saaro wiilkii godka. Waxaa dibadda ku sugaysay ambulance taasi oo u diyaarsanayd inay u qaado cisbitaal ku dhow halkaasi. Mid ka mid ah saxafiyiintii halkaas ku sugnaa waxa uu sheegay in durbadiiba waalidkii Rayaan ay garteen in khabar culus oo naxdin leh uu soo socdo. Kadib waxa uu yiri markii ay dareemeen dhaqdhaqaaqa kooxdii dhakhaatiirta ahayd iyo kooxdii badbaadiyaasha ahaa oo si daran u kala ordaya, isla markaana waxa uu sheegay in dhakhaatiirtii la socday Rayaan ay ka soo saaray godka soona saaray ambulance ay markii horeba ka shakiyeen in wiilku dhintay, balse markii cisbitaalka la geeyay ayaa waxaa la xaqiijiyay geeridiisii. Haddaba sidee loogu sheegay waalidkiisii? Waalidkiisa waxaa la saaray ambulance aan ahayn tii la saaray wiilka, waxaana ay tageen cisbitaalkii, waxaana la sheegay in wasiirka caafimaadka ee dalka Morocco uu si degan ugu sheegay waalidkii in dadaallo fara badan kadib uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiisa la celin waayay, sidaasina uu ku geeriyooday. Dhimashada wiilka ayaa waxaa loo sabaynayaa inay sababtay ama ay ka dhalatay kadib markii uu muddo fara badan halkaas ku jiray oo uu waayay oksijiin ku filan. Sidoo kaleeto dhakhaatiirta qaar ayaa waxay sheegayaan in cunno loo tuuray oo aad u fara badnayd ay waxyeeshay. Dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in qofku marka uu in muddo gaajaysan yahay, marka uu cuno cunno fara badan ay ku noqoto dhibaato systemkiisa ama nidaamka jirka qofka uu la qabsan waayo cunnada cusub ee faraha badan, taas oo sababta in qofka uu wadnuhu khalkhal galo sidaasina uu ku dhinto. Sidoo kaleeto gunta hoose ee godka uu ku jiray waxa uu ahaa mid aad u qabow, taasi oo sababtay in wiilku maadaama uu aad u yaraa oo halkaasi xaalado fara badan ku wajaho muddo 5 beri ah.